السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقا وساكو بولي وحان كسعودا إذاعة داوا FM subaxnimada saaka waxaan u soo shaqo tagnay halkan oo aan taaganahay oo ah albaabka laga galo aqalka baarlamaanka Mandera halkan maanta waxaa la dhaarinayaa xildhibaanada ama wakiilada golaha hoose ee laga soo doorto Mandera subaxnimada saaka markaan halkan yimaanay oo alaabta inaan soo qaadanay warbaahinada localka ee Mandera ka shaqeeya waxaa nagu leeyahay ma gali kartaan halkan sababo jira awgood kaliya waxaa loo ogolaaday inay galaan dadka ka socda ee telefishinada qaranka ama telefishinada nationalka loo yaqaan anaga ma naqaan sababta noo la diidayo telefishinada nationalka ayagu waxa lagu taragalay dabcan ayagu waxay Mandera yimaadaan xilliga ay dhacaan dhacdo weyn sida basba gadoomi ama wax kale oo weyn inta badan lama helo laakiin waxaad moodaa in dadka mas'uuliyiinta county-ga Mandera gaar ahaan kuwa hadda gadaasheena taagan inay xoog saarayaan inay muhiim la tahay warbaahintan dabcan nationalka anaga ma naqaan sababta saakan ugu diidin albaabka angalno waxaan ugu wargeliyay yaa diidan dhan waa weydiin waxaan ugu yiri waxaa diidan nin geedil yiraahdo geedigu wuxuu ma naqaan anaga wuxuu ka socdo laakiin waa isweydiinay sababto marka dambe xitaa wariyaal ayaan dirnay gudaha ay galeen xitaa gudihii kale looma dhaadhici karin inay taagan magaca media markuu maqlaba dabcan gafuurka lagu tuuray wuxuu leeyahay sunba naga tahay annaga waxaan galabsanay ma naqaan saa media u nahnayna dhibaato ayaa hadda noo bilaaban hayso waayo dawladda ay bilow tahay 5 sano cusub oo hadda waxa noo bilaaban haysa diidmo iyo caga jugleen mana naqaano waxa aan dabcan kasba aan galabsanay marka waxaan leeyahay hadda gadaasheena waxa lagu dhaarinayaa aqalka wakiilada hoose dabcan hawshina way socotaa media-na ma joogan media waxay halkan u yimaadeen in dadko ama bulshada meelaha fogfog jira ay wax u gudbiyaan hadii dadkan wax loo gudbin karin ma naqaan anaga wax gudaha lagu qaranayo waxa la diidan yahay in runta la soo bandhigo marka wabillahi tawfiiq magacaygu Cabdiqafaar Habi waxaan ahay wakiil wareedka warbaahinta Star ismaamulka Mandera saaka aroortii hore 7 subaxnimo ayaan imid albaabka hore ee xarunta golaha wakiilada ismaamulka Mandera sida lagu balansana maanta xarunta golaha wakiilada waxa lagu dhaarinayaa MCA-yada ama golaha wakiilada ee la soo doortay 9 bishii 8 hase haatee inta badan ama waan raahda dhammaan wariyaashii ee ka howlgalayay magaalada Mandera saaka albaabka hore ayaa lagu reebay dhamaantood kaliya waxa gudaha ku jira ama loo ogolaaday xubno ka tirsan amaba kuwa la shaqeeya dawladda ismaamulka iyo wariyaal ka yimid Nairobi ma garanayno sababta anaga oo reer Mandera isla markaana bulshadii reer Mandera iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari ay naga sugayeen saaka waxa ka socda gudaha xarunta golaha wakiilada inuu lagu diiday si walba ay noqoto aniga ka Cabdiqafaar ahaan waxaan isku dayay in aan gudaha galo albaabkii ugu horeeyay markii aan dhaafay oo aan gudaha galay waxaan la kulmay waliba face to face aan u arkay waji ka waji shakhsigii diiday albaabkan aan ka galno geedi wuxuu ii sheegay isaga qudeysu in uusan ogoleenba in wax wariye gudaha u galaan isla markaana albaabka ugu dambeeyay uu iga soo celiyay taasina ay keentay in aan banaanka u soo baxo mar kale marka ma garanayno saaka sababta inoo lagu diiday waxa inoo muuqata 5 sano oo dabcan ciqaab la marinayo wariyaasha inay noo bilaabatay garan maayo shacabka reer Mandera cid u shaqeyn doonta hadii dadkii indhahooda ahaa halkan banaanka lagu celinayo isla markaana warbixin walba oo ay u gudbin lahaayeen laga reebay inay soo gudbiyaan saaka gudaha waxa ka socota dhaarintii suxufiyiinta banaanka ka joogan cid soo gudbin karta ma laha marka dabcan kulley siday wax u socdaan siday ku dhamaan doonto ma naqaano ilaa ay ka soo dhamaanaysan halkan ayaan ku sugnaan doonaa si madaxda kala duwan ay soo bixi doonta aan u weydiino sababta halkan inoo lagu diiday waa mahadsantiin magacaygu waa Cabdixakiim Hashim Macallim wariye ka howlgala kana shaqeeya magaalada Mandera TV-ga Mandera Cable TV ka shaqeeya saaki aroornimadii ayaan halkan yimaanay waxaan u nimaanay in aan hadii aan nahnay warbaahinta ka howlgashay magaalada Mandera aan soo gudbina dhaarinta iyo xafladda lagu dhaarinaya MCA-yada golaha hoose magaalada Mandera nasiib daro waxaan la kulannay warbaahintii saxaafadda luqadda afka Soomaaliga dhammaan ku hadlayeen in gacan bir ah lagu qabtay oo loo diiday in ay soo gudbiyaan wax halkan ay ka dhacay shacabkan ay la wadaagaan saxaafadda mana naqaana sababta loogu diiday iyo sababta loo dhahay saxaafadda ma geli karto oo ma soo gudbin karto loo dhahay dawladda county-ga hadartan ay curdun tahay ay bilaabaysaa shaqada hadartanna waxaa bilaabanaya sidaan aragna oo maanta wariyaasha dhammaan garabkayga taagan aad arkaysaan xitaa shacab ayaa halkan nagu celinaya sad arkaysaan haween iyo rag dhammaan isugu jiro
marka 5 sano oo saxaafadda lala dagaalamay ayaa bilaabanaysa sidaan arkayna oo ka imaanaysa dhankan iyo county government-ka magacaygu waa xasan aftiin maxamed waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Mandheera sidii saaxiibadayda ay hore u sheegeen waxaan aad ugu xumahay maanta in halkan albaabkan ugu celiyay oo aan joogno meeshii lagu dhaarinayay golaha wakiilada baarlamaanka hoose ee ismaamulka Mandheera saaki waxaan u soo kalahanay in aan u tabino bulshada county-ga Mandheera dhacdada weyn halkan ka socoto laakiin waxaan nasiib daran ugu noqotay in albaabkii wariyaasha magaalada ka howlgalay dhan laga celiyo si aysan ugu suurtagelin in wixii gudaha ka jiray oo dhabta inay u soo tabiyaan bulshada ku xiran marka waxaan dhahayaa marka sida fariinta walaalahay ay u sheegeen in nasiib darro ay tahay county cusub maanta bilow ah in saxaafadii uu colow u qaado sababtana ma naqaano laakiin waxaan is dhihi karaa wariyaasha ku sugan magaalada Mandheera iyo warbaahinta magaalada Mandheera ka shaqeyso in 5 sano oo culus oo ay u bilaabatay maadaama aan loo ogoleen in xogtii dawladda ay ku dhaxnoolaayeen iyo bulshada u shaqeynayeen in ay macnaha loo diidayo